السلام عليكم أصحابتان جعلنا كسو دوادا قصدين مانتا حاسكيغا جنة واتما وبلال ابن رباح وحو أهانين آدو عبادو جعل هبين أيو نفتي سلا شاكستي وحونا كويري ربيو حاسكيغا جنة واتما هبين كحيغي أيو سيحدا إسوغا ويسقبا وحو كوريوضي إيادو لغو ليهاي حاسكاغا جنة وقبر مذو oo waxay joogtaa meesha la yiraahdo Awdas. Bilaal wuxuu yiri riyadaas ayaa igu soo noqnoqotay dhowr habeen dabadeed waxaan u soo weysaystay sidii aan u raadin lahaa gabadhaas madow ee ku nool meesha la yiraahdo Awdas. Bilaal markuu yimid goobtii dadkii ayuu wuxuu weydiiyay gabar madow oo joogta magaalada. Nin ayaa u jawaabay oo ku yiri ma waxaad rabtaa gabadha madow ee waalan? Bilaal wuxuu yiri oo ma gabadha waalan? ninkii ayaa yiri war gabadhu aniga ayay adoon ii ahaan jirtay. ninkii ayaa yiri war gabadhu aniga ayay adoon ii ahaan jirtay. dabadeed waxay soomanaan jirtay maalin oo dhan, habeenkii oo dhanna salaad ayay tukan jirtay. marka aan is yiraahdo afurka sii ama saxuuta may cuni jirin ee way sadaqaysan jirtay. markuu halkaas marayay ayuu Bilaal ninkii ku yiri oo aaway hadda gabadhii. wuxuu yiri ninkii waan xoreeyay oo hadda ilma joogto meel miiga ah oo saxara ah ay ari u raacaysaa reero. markaas ayuu u tilmaamay Bilaal jihada ay joogto gabadha. goobtii markuu yimid Bilaal ayaa wuxuu arkay gabar madow oo ari ku dhex tukanayso oo arigan xagga dambe uu ka socdo waraabe, xagga horena uu ka socdo waraabe. oo aad moodo in uu ilaalinayo waraabaha ariga uuna tusayo cooska. markii ay ka soo jeesatay salaadii isagoo la yaaban arrimaha dhacaya ayay ku tiri Bilaal assalaamu calaykum, waxaad tahay ninkaydii jannada. Bilaal wuxuu yiri aad baan ula yaabay hadalkeedii iyo riyadeydii sidii ay isku waafaqeen. markaas ayuu Bilaal gabadhii u waramay qisadii riyadiisa, iyaduna waxay tiri anigana sidoo kale waa la igu bishaareeyay inaad tahay ninkayga jannada. markay qisadu halkaas ay maraysay ayuu Bilaal gabadhii weydiiyay bal iga waran labadan waraabe ee ariga ku ilaalinaya. waxayna tiri Bilaal haddii aad hagaajiso xiriirka adiga iyo Alle idinka dhaxeeya, adigana wuxuu ku hagaajinayaa xiriirka idinka dhaxeeya cid kasta oo xataa xayawaanada. waa ku mahadsantiin asxaabta daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.